ururka midowga Afrika ayaa walaac xoog leh ka muujiyay suuqa adoonsiga dadka muhaajiriinta ah oo ka dilaacay dalka Liibiya oo ah marinka isku xidha Yurub iyo qaaradda Afrika inteeda kale. gudoomiyaha midowga Afrika Professor Alpha Conde ayaa si xoog leh u dhaleeceeyay dhacdooyinka adoonsiga ee laga soo sheegay dalka Liibiya. Professor Alpha Conde ayaa xusay in loo baahan yahay dadka ficiladaasi ku dhaqaaqay in la soo hortaago maxkamad cadli ah si loogu ciqaabo dambiga ay galeen. warbixin uu sii daayay telefishinka CNN oo laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa waxa uu ka faa'iiday tacadiyada dhinaca bini'aadanimada ah oo laga galo dadka muhaajiriinta ah isaga kala gudbaya wadamada qaaradda Afrika iyo Yurub kuwaas oo lagu kala iibsanayo suuqyada madow. dadkan ayaa wixii xoog leh ay ku shaqaystaan dadka markaasi iibsanaya iyagoo qodaya beeraha. arrintan ayaa warbaahinta caalamku ay si weyn u qaada dhigaysa waxaana lagu tilmaamay inay tahay dhacdadii ugu foosho xumeed ee la kulmaan dadka tahriibayaasha ah.